shirkan oo maanta ka furmay magaalada Cape Town ee wadanka Koonfur Afrika ayaa waxaa looga hadlayaa kheyraadka Afrika iyo sidii looga soo saari lahaa waxaana ka soo qayb galay wasiirka macdanta ee batroolka Soomaaliya mudane Maxamed Mukhtaar. shirka ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 maalin ah waxaana si weyn loogu falanqeyn doonaa sidii wadamada Afrika looga soo saari lahaa kheyraadka ku jira. wasiirka oo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yiri shirkan waxa la yiraahdaa shirkii shidaalka Afrika asbuucla ah waxa la qabtaa sanadkiiba mar kan waa kii 22aad ee la qabto waxaa looga hadlayaa arrimaha shidaalka gaar ahaan Afrika iyo sida looga faa'iideysan lahaa. wufuuddu joogto waxay dhan tahay ilaa iyo 2000 sanadkii hore waxay imaaday 1600 marka kororkaas ay kordhayso waxay muujinaysaa muhiimadda la siinaya Afrika sidaan la socono dhawaan East Africa gaar ahaan wadamada dariskana la oo ay kamid yihiin Mozambique, Tanzania, Kenya, Uganda, Ethiopia dhammaan shidaal ayaa la bilaabay in laga soo saaro. annaga halka marka waxaan joognaa Soomaaliya in ay ka maaranto macaawinada ay ku tirsan tahay oo ay gudubto qaabka ay kaga faa'iideysanayd kheyraadka Ilaahay siiyay in aan marka shirkadaha aan u sheegno meesha ay xaaladdeena marayso iyo qaabkii aan ugu wada shaqaysan ugu wada faa'iideysanayd kheyraadka Soomaaliya inaan ka wada hadalno oo ay gudubto qaabka ay kaga faa'iideysanayd kheyraadka Ilaahay siiyay in aan marka shirkadaha aan u sheegno meesha ay xaaladdeena marayso iyo qaabkii aan ugu wada shaqaysan ugu wada faa'iideysanayd kheyraadka Soomaaliya inaan ka wada hadalno. ujeedada koowaad waa sidaan kuu sheegay waxay tahay in aan u sharaxno Soomaaliya kheyraadka ku jiro meesha wax marayaan sida la socoto dhawaan bishan October aan ku jirno 22keeda dawladda Soomaaliyeed dawladda xubnaha federaalka waxay heshiis ku gaareen magaalada Muqdisho ay ku sheegayaan inay sameeysanayaan qaab siyaasadeed ku aadan qaabka Soomaaliya qaabkii looga faa'iideysan lahaa. sidoo kale waxaan wadnaa dadaalo inaan sameeynayno shuruucdii loo baahnaa. sidoo kale waxaan aruurinaynaa macluumaadkii ku saabsan arrimaha shidaalka intaas oo dadaalan waxaan wadnaa waxay tahay in aan shirkadaha caalamiga aan gelino kalsooni ay ku maalgashtaan Soomaaliya waxay u baahan tahay aqoonta iyo waayo-aragnimada dhaqaalaha shirkadahan ay leeyihiin annagana waxaan haynaa kheyraadkii marka inaan dhammaystirno shuruudii iyo siyaasadii looga baahnaa kadibna waddankeena aan ku tallaabsiino inuu ka maarmo macaawinada una hormaro ee uu asoo ka faa'iideysanay kheyraadka Ilaahay siiyay. Abdullahi Ibrahim Dasar warbaahinta qaranka Soomaaliya magaalada Cape Town Koonfur